qisadan maanta aan ka sheekaynayno walaalayaal waxay ku saabsan tahay gabar iyadoo niikinayso heesiisa dhimatay laakiin taa waxaa ka sii daran walaalayaal geerideedii kadib maxaa dhacay nin ayaa ka sheekaynaya qisada gabadhan ninkaasoo ka mida dadka meydka dhaqa ee xirfadaas caanka ku ah ee aad u yaqaan iyo sida meydka loo aaso wuxuu yidhi maalin maalmaha ka mida waxaa ila soo hadlay ninkiibaa wuxuu igu yidhi gabadhaydii waa dhimatay gabar aan dhalay ayaa dhimatay waxaana doonayaa inaad ii imaatid si aad u kafantid gabadhaas qof kale ma haye ama qof kale ii soo dirtid ninkii wuxuu soo diray haweenay oo meydka haweenka dhaqda ayuu u soo diray haweenaydii ayaa soo baxday waxayna timid gabadhii dhimatay gurigoodii markay imaatay ayaa waxaa layidhi wadka gabadhii meydkii halkaasii taallaa kaalay u soo gal oo dhaq markay haweenaydii meydkii gabadha u soo gashay oo wejigii gabadha ay aragtay haweenaydii waa la miyir daboolay oo dhulkay ku dhacday dadkii baa yidhi maxaa kugu dhacay biyay ku rusheeyeen xoogaa kadib bay soo toostay oo miyirkii u soo noqday ninkii bay la xidhiirtay oo ay wacday ee u soo diray gabadhan inay soo dhaqdo markaase waxay ku tiri waxaa igu dhacay arrin la yaab leh oo iga qabsaday gabadhan meydka ah weligayna ma arag arrintan wax la mid ah intaasoo sanaana dhaqayay meydadka markaasuu ninkii wuxuu yidhi ii sheeg maxaad aragtay oo gabadhaad ku aragtay waxaan ku arkay bay tiri gabadhii meydka ahayd iyadoo calool sida loogu jiifiyey qacanteeda bidixna madaxa laga saramariyey oo laga kormariyey qacantii midigna caloosha hoosteeda ay ku jirto waxaan arkay bay tiri lugteeda midig oo kor u qaadan oo midda bidix ka sarraysa waxaanaad moodaysaa sidii qof niikinaya oo boodboodaya gabadhuna waa meyd waxaan isku dayay bay tiri qacmaha iyo lugaha inaan u toosiyo oo meeshooda ku celiyo waa awoodi kari waayey arrintaas inay ii suurta gasho ninkii baa wuxuu yidhi gabadhan hooyadeed su'aal oo waxaad weyddiisaa gabadhaadu maxay samayn jirtay markay noolayd ee caafimaadka qabtay maxay ka shaqayn jirtay maxayse samayn jirtay dhaqan nooceeda ayay lahayd hooyadeed bay u yeertay gooni bay ula baxday waxay weyddiisay gabadhaadu maxay samayn jirtay markay noolayd hooyadii ayaa ooyday oo ilina ay soo dhaaftay markaase waxay tidhi gabadhaydii waxay ahayd mid jecel heesaha weliba jacayl aad iyo aad u xeel dheer ayay jeclay wax kastana heesta iyo niikada ka jeclay har iyo habeen iyo 24 saac heesunbay dhegaysanaysaa qof aynu isgarayno oo aroosay ayaan arooskiisa aadnay annagoo arooskii joogna oo gabadhaydu ila socoto ayaa gabadhaydii soo istaagtay kadibna inay niiki soo boodbooddo ayay guda gashay oo ay heesto iyadoo heesaysa oo niikinayso boodboodayso dabada ruuxaysa bay dhulka ku dhacday oo la miyir daboolay waa ku soo yaacna haddaan dadkii xafladda joognay aan nahay kadibna gabadhii inay sakaraad tahay ayaan ogaanay kadibna gaari ayaan kula soo cararno isbitaalka ee dhakhtarkaan la soo aadnay markaan dhakhtarkii keennay ayaa la fiiriyey mase waa meyd gabadhu ayadoo niikinaysa oo heesaysa ayay dhimatay haweenaydii meydka dhaqi lahayd ayaa waxay tidhi wataas sida hadday u taallo meydkeeda u yaallo waa qaabkii ay u boodboodaysay sidii bay ku dhimatay marka oo naftooga baxa ujeeddaduna waxaa weeye walaalayaal qof walba maanta wuxuu ku dul dhinto iyo wuxuu caadaysto oo uu ku dul dhinto ayaa qiyaamaha lala soo saarayaa qaabkiisuna sidaasuu noqon doonaa ka fiirsa marka intaad nooshahay waxaad jeceshahay iyo waxaad dhegaysanaysid iyo waxaad samaynaysid laga yaabe xumaan adoo ku dhex jira in geeridu ku imaato xumaantaasna qiyaamaha lagula soo saaro ama sidaa aad u dhibatid walidaalika nebigeenna wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam markuu dhinto shaqada uu ku jiray ayaa qiyaamaha lala soo saari doonaa nebigeenna calayhi salaatu wasalaam xaqiiqa ayuu sheegay gabadhan waa dhimatay iyadoo heesaha dhegaysanaysa oo miistiga dhegaysanaysa oo waxyaalo kaloo xaaraana dhegaysanaysa oo niikinaysa oo boodboodaysa kadibna sidii baa nafta uga baxday iyadoo dhaqanka ku jirta marka walaalayaal aynu ku dadaalno camalka wanaagsan kaasaa hoggaamiye noo noqon doona maalinta qiyaamaha oo noo ifin doona waddada jannada ka fiirso sidaad u dhimanaysid iyo waxaad ku dul dhimanaysid iyo shaqadaad qabanaysid ilaahay ha nagu irsaaqo khaatumo wanaagsan hana ilaawina walaalayaal inaad muuqaalka laygta saartaan siina faafisaan kuna soo biirtaan jannalka oo nala wadaagtaan khayrka jazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu